Maryaha guud ee dekedaha Somaliland Siciid Xasan Cabdilaahi ayaa shirkan jaraa'ida ku qabtay dekeda weyn ee magaalada Berbera waxa uu ka hadlay markabka Kota Kaya oo toddobaadadii u dambeeyay ku xalimnaa dekeda weyn ee magaalada Berbera kadib markii uu shubi waayay lacagta loo yaqaano handling charge-ka ee ay qabato shirkadda DP World. Maryo waxa uu sheegay in ay dawlad ahaan ay markabkaasi ku soo xidhan dekeda weyn ee Berbera isla markaasina ay ka rogeen badeecadihii ay lahaayeen ganacsatada Somaliland ee saarnaa balse uu weli markabkaasi u xaniban yahay lacagtaasi lagu leeyahay. Maryaha oo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yiri Bismillahir Rahmanir Rahim wari aad baan mahadsantahay runtii su'aashaas waa su'aal muhiim ah oo ayaamahan ba socotay markabku wuxuu badweynta taagnaa muddo ka badan 12 cisho sababta uu taagnaana sida laga wada dharagsan waxa weeyaan xisaabaad baaqi ku ah shaqooyinkii loo qabtay shirkadda Bill Pacific International Line taasoo laga doonayay loona sheegay marka hore inaan loo shaqeynin ilaa uu lacagta bixiyo muddada dheer ay qaadatay welina lacagtii ma bixin waxa weeye anagoo eegayna dhawaaqa ka soo yeeray ganacsatada Jamhuuriyadda Somaliland ee u rarayay markabkani waxaan go'aansanay dawlad ahaan inaan markabkii soo xidhno dadka ganacsatada masaakiinta ah ee iyagu nooligoodii iyo cashuuraadkoodii iska bixinaya in loo rogo oo aan lagu baanish garayn dambi aan shaqo ku lahayn sidaa awgeed xalay 12kii habeenimo ayaan markabkii soo xidhay waad arkaysaa indhahaaga ku arkaysaa waa taal la rogayo waa cashuuranayaan alxamdulillah rabbil caalamiin markabkaas markuu dhamaysto ee rogitaanka la rogo lama saarayo containeradii faaruq ahaa waxaan dhigaynaa badda anchorage-ka halkaasaan ku xayirnaanayaa ilaa iyo inta bixinaya lacagtii loogu shaqeeyay ee laga doonayay runtii aad baan uga xumay ganacsatada inay muddada ku qaadato haddana kolay marka la jecla meesha timaado lacagtii dekadu ku shaqeynaysay haddii la waayo waxa imanaya runtiina shirkadda Bill macaamil fara badan ayaan lahayn waxa weeye containerkii ugu muddada dheeraa container line-kii waxaanu rajaynaynaa insha Allah sida uu dhaqsaha badan inuu soo bixiyo wixii baaqi ku ah xisaabaadkii haddii Allah awood la yiraahdo sidaan ku sheegay waxa weeye tan anaga go'aansanay inaan rogno macnaheedu waxa weeye deyntii ay raacaysaa markabkuna uu taagnaanay ilaa inta lacagta bixinay insha Allah Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Somaliland Berbera.